Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fiidiyowga waxaan ku eegaynaa falanqaynta wiikan inagoo ka bilaabaynaa DXY. DXY wiikii hore halkaas ayay maraysay, meelahaas ayay maraysay. Marka waxaan idhi wiik waxaa laga yargelayaa correction, kadibna waa lasoo dhacayaa. Marka chance kastoo sela waan ka faa'iidaysanaya. Chance kastoo sela waan ka faa'iidaysanaya. Marka waxay bixisay chance badan bay bixisay lacagaha badanka USD la socdaan. Marka halkii aan doonayay badankana waa la yimi. Iminka Euro USD waxaan ujeedaa DXY badanka waxay ka masuultay lacagahan kale. Haddii uptrend noqotona lacagaha kale kuway u horeysa uptrend bay noqdaan, kuway u dambeysana downtrend bay noqdaan. Haddii downtrend noqotona lacagaha u horeysa downtrend bay noqdaan, lacagaha u dambeysana uptrend bay noqdaan. Markastaba lacagaha u horeysa ay magaranaysaa ay iswaafaqaan. Marka movementigan halkan marka laga soo bilaabo ilaa halkaas si aad ayuu soo dhacay ilaa wuxuu ahaa ilaa dhowr boqol oo bib ayuu ahaa, ilaa 200 bib ku dhawaad ayuu ahaa. Marka waxaan u malaynayaa inta inaad ka faa'iidaysatay. Imka maxaa laga rajeynayaa wiikan suuqa? Wiikan waxaan ka rajeynayaa suuqu wuxuu bilaabay impulse, waxaan ka rajeynayaa correction kale, impulse kale. Marka waxa soo socda isaguna waxa kusoo xigi doona downtrend ba kusoo xigi doona. Marka weli correction imka muu dhamaan. Haddii chance-ka uptrend-ka yar aad ka faa'iidaysan kartid waa axsan. Haddii kalena anigu markasta waxaan sugayaa chance-ka downtrend-ka ayaan sugayaa. Waayo uptrend-ku waa wax yar uu yaryay ilaa meelaha waa la gaari karaa, ilaa meelahan waa la gaari karaa, ilaa halkaas waa la gaari karaa. Halkan uu marayana wuu kasoo dhici karaa, labadaba wuu samayn karaa. Laakiin anigu sidaan rajeynaya waxa weeyaan one movement oo kor loo socdo, correction yar inta la yar galo kor loo yar socdo kadibna lasoo dhaco. Marka DXY waxaan ka rajeynayaa waxa weeyaan waa downtrend. Exactly halka ay marayso in yan intay kor uga kacdo, in yar kor intay uga kacdo way soo dhici kartaa. Sidaa way soo dhici kartaa. Laakiin waxaan rajeynayaa sidan way samayn kartaa. Waxay kala samayn kartaa inay in yar correction karto, correction inta yar gasho kadibna impulse kale kor la yar aado saas oo kale kadibna lasoo dhaco. Marka labadaasi waa suurtagal. Chance kastoo sele waan ka faa'iidaysanayaa, laakiin waa inuu imka dhaqaaqani dhamaadaa. Dhaqaaqan korka u socdaa waa inuu dhamaadaa. Marka DXY waxaan ka sugayaa chance uptrend yar oo meelaha maalmaha soo socda Isniintii Salaasada kadibna downtrend. Marka ilaa chance kastoo markuu uptrend-kan yar correction-kan markuu dhamaado ayaan chance-yada selka ka faa'iidaysanayaa. Euro USD wiigii hore meelahaas ayaa la marayay. Waxaan idhi waa lasoo yar dhici karaa, in yar baa lasoo dhici karaa. Waxaan idhi meelahaas ay maraysay, waxaan idhi waa lasoo yar dhici karaa sidaa marka loo soo dhaco. Chance kastoo baaya waan ka faa'iidaysanayaa baan idhi. Chance kastoo baaya waan ka faa'iidaysanayaa. Marka meelahan oo kale chance buu iga siiyey ilaa movement dheer ayaa si weyn ayay u kacday. Halkaas ayay ka kacday ilaa halkaasi waa dhowr boqol oo bib ilaa 230 bib weeyaan. Waxaan u malaynayaa inaad ka faa'iidaysatay oo aad wuxuun ka qabatay lacagtaas. Marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysatay. Haddii aanad ka faa'iidaysan lacagtan imikoo kale maxaa laga rajeynayaa Euro USD. Euro USD waxaa laga rajeynayaa inay correction sidaa usoo gasho soo yara dhacdo kadibna uptrend-keedii kusii socoto. Marka weli correction-kii muu dhamaan. Movement dheer oo uptrend ayaa soo socda. Laakiin correction-kan waa inaan sugnaa. Ugu yaraan waxa u yar hadhay hal movement ayaa u yar hadhay, in yar bay meelahan oo kale way soo gaari kartaa. Marka Euro USD waxaan ka rajeynayaa inay correction-ka dhamaystirto. Correction-ka markay dhamaystirto kadib ayaan chance kastoo baaya kasii ka geli karaa. Waxaad arkaysaa halkaas in la jabiyey. Halkaas waxaad arkaysaa in la jabiyey. Marka kor waa loo sii socon karaa. Marka maxaan ka sugayaa? Waxaan ka sugayaa hal movement oo down kadibna uptrend. Marka chance kasta oo uptrend oo ka faa'iidaysan doona uptrend-ka soo socda. Laakiin waxa ka horeysa imika halkan oo kale iskuma tuuri kartid. Halkan oo kale in yar baa kor loo yar socon karaa waa lasoo dhacaya. Marka sidee u badantay weeyaan. Marka waxaan rajeynayaa anigu short term downtrend kadibna waxa soo socda insha Allah weekan iyo weeka soo socda waa uptrend.
marka waxaan rajeynayaa euro USD inay correction yar soo gasho lasoo yar dhaco kadibna uptrend la aado. GBP USD waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysatay. GBP USD hal meelahaasay maraysay wiigii hore, waxaa yidhi correction baa lasoo yargelayaa lasoo dhacayaa kadibna chance kastoo uptrend waad ka faa'iidaysan kartaa. Marka halka meelahaas oo kale ilaa halkaas waxay socotay ilaa 100 pip meelaha ku dhawaad, ilaa haddii aanay ka badnaynba waxay ahayd 170 pip. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysatay lacagtan, si fiican bay usoo dhacday. Imika haddaba imika waxaan ka rajeynayaa euro GBP USD waxaan ka rajeynayaa imika laga yaaba adiga inay ku tahay halkaasi hal impulse aad sugaysid correction impulse kale laga yaaba, laakiin anigu waxaan oo dhan waxay tahay waxa weeyaan waa correction bay tahay. Imika intaas oo dhan waa correction aniga, isagoo hal movement yahay laakiin dadkii meelahan ka kale ayaa salka lagaga dhufanayay. Marka imika waxaan ka rajeynayaa in yar correction waa la yar geli karaa oo lasoo dhici karaa kadibna uptrend baa la aadi karaa. Marka chance kastoo uptrend euro GBP USD weekend aad baan u xiiseynayaa, chance kastoo uptrend waan ka faa'iidaysanayaa insha Allah. Marka haddii uu chance-kaas welibana isiiyo weeyaan, haddii aanu isiin iskuma tuurayo, markastaba confirmation strategy-yadan eegaya, haddii ay isiiso chance waan ka faa'iidaysanayaa. Chance kastoo uptrend waan ka faa'iidaysanayaa. Marka GBP USD sida u badanta waxa weeyaan inay uptrend aadi karto. Waxaana rajeynayaa inaad fursadahan ka faa'iidaysatid haddii ay strategy-yadaada ku waafaqdo. Haddii aanay ku waafaqin ha gelin. NZD USD wiigii hore meelahaas ay maraysay, waa lasoo yara dhici karaa kadibna chance kastoo uptrend waan ka faa'iidaysanayaa. Ugu yaraan halkaa waa la jebin karaa ilaa halkaasna waa la jebin karaa waan idhi. Sidii way u dhacday, waa lasoo dhacay kadibna uptrend baa bilaabmay. Uptrend-kii markuu sidaa u bilaabmay waxa loogu soo jawaabay haddana hal movement aad u dheer ayaa soo noqday oo correction ah. Imika waxaan ka sugayaa impulse correction uptrend ayaan ka sugayaa. Laga yaabaa inay abtidaas tiraahdo halkani sababtanay impulse oo kale tahay laakiin way u egtay laakiin maaha. Ilaa meelaha waa lasoo jebin karaa, correction yar inta lakala halkan la iman karaa kadibna uptrend baa bilaabmi karaa. Marka lacagtan NZD USD waxaan ka sugayaa waxa weeyaan waa buy. Fursad kastoo buy waan ka faa'iidaysanayaa, fursad kastoo sellana waan iska daynayaa. Sida kaliya tan suuqan ka sugaya waxa weeyaan waa uptrend. AUD USD haddaan eego, AUD USD badanka waxay la mid tahay NZD USD bay la mid tahay, meelahaas oo kale ayay maraysay wiigii hore halkaasay maraysay. Marka waxaan idhi wiigii hore in yar inta sida loo soo dhaco ayaa magaranaysaa uptrend ayaa soo socda, uptrend dheer welibana ayaa soo socda aan idhi. Ilaa meelaha waa la jebin karaa ilaa halkaas halkaa kor baa loo sii jebin karaa. Marka sidii way dhacday, xoog baa kor loogu kacay. Imika intani waa correction-kani weli muu dhammaan ilaa meelaha laga yaaba inuu sii jebiyo sii socdo. Marka chance kaliya tan NZD AUD USD ka yara sugaya waxa weeyaan hal movement oo down kadibna chance kastoo uptrend waan ka faa'iidaysanayaa. Marka chance kaliya tan AUD USD ka sugaya waa maxay? Waa buy. Halka kaliya tan doonaya in la jabiyo ilaa ugu yaraana waa halkaas. Marka AUD USD week waxaan ka sugayaa waxa weeyaan waa buy. Waxaan rajeynayaa inaad movement-iga korka u socda inaad ka faa'iidaysatay. Haddii uu ku raacay waxa weeyaan strategy-yadaada, rajeynayaa inaad comment-iga igula wadaagtid insha Allah hadaad ka faa'iidaysatay lacagahan mid ka mid ah wiigii hore. Fadlan videogan like saar haddii aad ka heshay, haddii aad nagu cusubtayna fadlan channelka subscribe saar. USD CHF wiigii hore halkaas ayay la marayay, meelahaas ayay la marayay, halkaas ayay la marayay, hal movement-igaasaan haysanay, correction-kaas ayaan haysanay, halkaas ayay la marayay exactly. Marka waxaan idhi correction-kaas la marayay, waxaan idhi hal movement baa u dhiman kadibna way soo dhici doontaa. Sidaan rajeynayay saas ay ahayd, sidii bay noqotay, sidii aan filayay aan forecasting gareeyay. Waxaanan sameynaa badanka waa forecasting-ku waxa weeyaan kaliya inaad yar falanqay sidaa tiraa halkaas u aadi karaa. Marka waa lagu waafaqi karaa waana lagu diidi karaa. Marka sidii bay noqotay movement-igaas kaliya haddaad ka soo faa'iidaysatay waxay ahayd ilaa dhowr boqol oo pip. Waxay 200
70 ku dhawaad ilaa 160 pip ay ahayd. Marka waxaan u maleynayaa inaan ka faa'iidaystay. Iminka AUD, USD, CHF waxaan rajeynayaa correction kale inta la galo oo kor loo socdo. Marka USD, CHF consolidation way geli kartaa, consolidation dheer macal way geli kartaa. Marka USD, CHF weekend banaanka ayaan ka istaagayaa. Waxaan rajeynayaa inay correction dheer soo gasho. Correction dheer marka USD, CHF waxaan ka sugayaa correction impulse. Marka haddii ay ku waafaqdo buyga waad ka faa'iidaysan kartaa. USD Japai wiigii hore halkaas ayaa la marayay. Marka wiigii hore waxaan idhi in yar correction oo lasoo hirgeli karaa. Baalki waxaa dhahdaa halkaasna waa laga soo dhici karaa. Marka waxay samaysay iyadu ranging bay yar gashay, in yar bay kor u socotay, kadibna correction bay yar gashay, haddana kor bay u socotay. Iminka AUD USD waxaan ka sugayaa USD Japai waxaan ka sugayaa waa down trend. Sida kaliya tan ka sugaya waxa weeyaan down trend. Chance kastoo down waan ka faa'iidaysanayaa. Exactly halkaa way ka kici kartaa. In yar bay inta sida u kacdo ayaa haddana lasoo dhici karaa. Laakiin chance kastoo silaayo anigu waan ka faa'iidaysanayaa. Waan sell unban chance kastoo silaa waan ka faa'iidaysanayaa. Siday u badantayna waxa weeyaan halkaa way kasoo dhici kartaa. In yar bay kor u kici kartaa. Kadibna way soo dhici kartaa. Marka chance kastoo silaa waan ka faa'iidaysanayaa USD Japai. Dahabka wiigii hore waxaan idhi meelahaas ayuu marayay. Marka waxaan idhi hal movement oo aba ayaan ka sugayaa. Waxaan ka sugayaa waan idhi impulse. Waxaan ka sugayaa impulse ilaa meelaha waa lasii jebin karaa. Marka waxay sidii badanka movementiga dheer ayuu aaday suuqu. Haddana dib ayuu soo noqday. Marka waxaan rajeynayaa in correction la yar galo, hoos loo soo dhaco, kadibna korkiisii lasii wato. Ayaan rajeynayaa. Intaas ayaan ku joojinayaa falanqaynta wiigan anagoo kasoo bilownay dhegas waa Euro USD ilaa iyo dahabka. Waxaan rajeynayaa week fiican. Fadlan videogan like saar haddii aad ka heshay. Channelka hadaa ku cusubtayna fadlan subscribe saar. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.